السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونأكسن دمان بداوة ديال كسر دوادا مركلة برنامج كني افتين شلبا وحور بحنتن أنا كقاعدة لقيدونا حيرك مدة دير شري عليسكا يكوهيان هنانكا عدالة مركلة إيجو محكمة دها سوماليلان سيبا حيرك عقابته يهب كيسة حيرك مدنيجا يهب كيسة وربحنتي ولا ما يسترن واتن الدعوة شواعن marka la doonayo in la sugo gaadhista cadaalad la beegsanayo iyo dabiqisteedu waxay u baahan yihiin helitaanka sharci la raacayo oo qoran isla markaana ka maran galdaloolo haddii aanu ahayn shareecada diinta islaamka oo iyadu sharci ahaan dheelitiran maxkamadaha Soomaaliland waxa lagaga dhaqmaa xeerar xilli hore la dejiyay oo lagaga dhaqmi jiray maxkamadihii dawladda burburtay gaar ahaan xeerka ciqaabta guud iyo habkiisa iyo xeerka madaniga iyo habkiisa markaynu ka hadlayno xeerarka maxkamadaha lagaga dhaqmo Somaliland gaar ahaan waxa uu muhiimsan laba xeer iyo labadoodii xeerka ciqaabta guud iyo habkiisa xeerka madaniga iyo habkiisa mid kasta wuxuu soo maray taariikh iyo marxalado gaar ah tusaale ahaan waqtigii gumaysiga Soomaalida waxay maxkamad u kala ahaayeen Talyaani iyo Ingiriis markaan ka hadlayno waqooyigii qoodin oran jiray iyo koonfurta Soomaaliya maxkamadda Talyaani maadaama waxa lagu xukumi jiray Italian Penal Court laga ma xeer qaabad Talyaani u lahaa xagga Somaliland Ingiriisku ku soo rogay Indian Penal Court ma xeer qaabadka India oo 1860 India lagu maamulayay la sameystay Soomaaliyana waxay haysatay Talyaanigu ciqaabeedku isku maamulayay taariikhda caadiga waxay ka bilaabmaysaa markii Ingiriisku ka tagay Somaliland Talyaanigu ka tagay Soomaaliya ay midoobeen noqonaysa 1960kii waxay ka dambeeyay ilaa 1957kii oo midowgu soo socday ayaa maxkamaddii sare ee Soomaaliya ama maxkamaddii loo jiray maxkamadda sare cadaaladda ee Soomaaliya waxay saartay guddi uu hogaaminayay Senato nin la yiraahdo si uu u diyaariyo xeer ciqaabeed maxkamadaha ama xeer ciqaabeed lagu maamulo dambiyada 1900 1962kii ayaa National Assembly ama golihii sare ee Soomaaliya ee midowga wuxuu baaskareeyay xeer ciqaabeedkii Italian Penal Court haddii aynu hore ugu sii soconno xeerarkan markoodii hore yaa sameeyay maxaase lagu saleeyay markii la dejinayay Italian Penal Court marka laga hadlayo waxa sameystay faashistihii Talyaaniga ee dagaalkii labaad ee adduunka Yurub ka hor 1930kii ilaa 1931kii baa la sameystay marka xeer ciqaabeedka macnihiisu wuxuu noqonayaa waxa loogu talagalay in lagu maamulo dalka Italiso hanaanku dhisan yahay markaad eegto hanaanka Italis maadaama faashistiyada Talyaanigu sameystay oo xeer ciqaabeedka ama habka xeer ciqaabeedka guud oo isagoo loogu talagalay in hanaanka dhageysiga dacwadaha maxkamadda waxa la Britania Australia ama xilliga qofka la soo xiray marka xeeraarinta uu yimaado iyo markuu maxkamadda hor taagay iyo garsoor dacwada dhageysanaya lagu maamulo oo inta u dhaxaysa intaas ilaa intuu xabsiga tagay ilaa jeelka ilaa intuu xabsiga tagay hanaanka cadaaladeed ee hanaanka dambiyada cadaaladda iyo sida qofku dacwada u gudbinayo si uu difaacayo qaranka soo helayay intaas oo dhan ka warramo isaga laftiisa markii wuxuu ka yimi waxa la yiraahdo laba xeer buu ka yimi oo India leedahay oo la sameeyay 1870 waa xeerka cadeymaha ay India lahayd iyo xeer la yiraahdo xeerka cadeymaha India ay lahayd iyo xeer la yiraahdo xeerka dambiyada ama India lahayd labada xeer la faaqay India ku isticmaali jirtay 1870 waa qarnigii dhowr qarni ka hor xilliga xeerka la isticmaalayay baa ayuu la isticmaalo oo Ingiriiskii Somaliland xukumayay isaga sidiisa Somaliland baa loo qaatay maadaama kii hore Talyaaniga laga soo qaatay waxa kale jira xeerka madaniga isaga laftiisu wuxuu soo maray taariikh gaar oo waxaynu ka soo bilaabaynaa waqtigii midowga marka laga hadlayo civil court
Somaliland iyo Soomaaliya waa isticmaalaan oo waa xeer aduu aan oran karo wuxuu ahaa xeer masaarida ay samaysatay oo wuxuu ku sideed waxa ka waramaya xeerka marka madaniga ku leeyahay madaniga ka waramay madanigu wuxuu ka waramaa marka leeyahay madanigu waa waajibaadada heshiisyada deymaha hantida la isku qabsado dhulka la isku qabsado waxa madaniga hantiya xeerarka noocaas oo kale ka waramay waa madaniga wixii madaniga kiisaska madaniga ayuu sheegaa isagu waqtigii midoobay waa waqtigan ay ku 840 wixii ka sii dambeeyay xeerkan oo kale ku 840 Masar soo qaadatay ay Soomaalidu qaadatay markay midoobay ku 960 xeerka wanaagiisa iyo goldololadiisaba waxaa la ogaan karaa marka lagu shaqeeyo ee laga howlgeliyo maxkamadaha iyadoo natiijada la socotaana ay tahay in la gaadho xukunno cadaaladda ku dhisan isla markaana cidda lagu qaadayo aan lagu tacadiyeynin haddaba ma jiraan wax goldololooyin ah afarta xeer haddaba cadaaladda khuseeya maanta ood moodo inay yihiin xeerar gaboobay absolutely waa xeerar gaboobay waa xeerar la odhan karo waa outdated penal code markaad eegto ama xeerkan ciqaabka guud waa xeer la sameeyay 1936 draftkiisii ugu horeeyay Talyaani baa laga soo qaatay markii dambena 1960 xeerkaas waxa ku jira qodobo ka hor imanaya xuquuqda aadamaha oo ay kamid tahay مثل waxyaalan saxaafadda iyo maanta isugu dhacaan mar walba dawladdu waxay adeegsataa dawladdu penal law iyadoo xeer saxaafadeed u jira penalty-ga uu gali kara ninka saxafigu crime uu gali kara de penal code waa lagu dabaqaya marka uu shaqadiisa ka baxsan laakiin isagoo gudanaya shaqadiisa marka xeerka loo adeegsanayo qodobo ka hor imanaya jira dastuurkaagiina wuxuu leeyahay Somaliland xuquuqda aadamaha iyo freedom of expression baa la aqoonsaday xeerkaaga saxaafaddu sidaas uu leeyahay qodobadaas waa ka mid markii aan baaray eegay ama garyaqaanadu sida ay ku doodaan waxa ka mid ah 1930kii waad garan kartaa wax dambi ah ayaan qarniyadii ka dambeeyay dambi noqonay waqtiga dambiga jiray imka dambi ma noqon karo tusaale ahaan dunida waqtiga casri ma ahayn may jirin tiknoolajiyad waxa jira dambiye tiknoolajiyad lagu galay sida lacagaha mobilada la isku weydaarsado oo dad noqonaya dambi ciqaabeedku markuu ka hadlayo tuugo wuxuu si gaar ah u qeexaa oo inuu qofku hanti qaatay ogaalka qofka ka qaatay marka hantida ay noqoto wax soo lidho la qaadan karo laakiin figures kama lacagan la xadayo inuu sheegay waana tuugo laakiin waa in elementkii iyo dee lagu daro ama uu qayb ka noqdo ama xeer gaar loo sameeyo ciqaabeedka xeer sababtaas loo isticmaali karin waxa jireen kala dambiyo lagu galo internetka iyadoo la isku dhaco waqtiga ma jirin duniduna internetka saamay gaaritaanka cadaaladda oo ah halbeega lagu wada qanaco marka uu si sax ah oo bilaamadmadow ah u dhaco xukun cid lagu qaadayay ama dhibaato laga heshiinayay waxa inta badan uur ku taala iyo ciil reebta kolka go'aankaasi natiijo qalad ah dhalo sidaa darteed miyay jirtaa wax caqabad oo xeerarkani ku keenaan hanaanka gaadhista cadaaladda sugan caqabado badan baa jira oo xagga garsoorka ka haysteen xeerarka gaboobay waa run oo jirta arintaasi dalkeenu wuxuu isticmaalaa xeerarkii soo baxay 60nadii iyo 70nadii wixii ka horeeyay xeerarkaasi waa xeerarkii laga dhaxlay dawladda Soomaaliya waxa weeye xeerar waqtigooda dhacay weeye waxyaabo badan oo dunida casriga maanta ay tahayna kuma jiraan marka waxa jira oo garsoorayaashu waxay sameeyaan qodobka ugu dhow bay isticmaalaan waxa qodobkaas ugu dhow ay qaateenna waxa laga yaabaa qodob aan arintii aad u khuseen inuu noqdo marka hadii goor dhib baa ka dhacdo garsoorayaasha dhib baa ka haysata looyarada ahaana dhib weyn baa nagala kulanta waayo qofkii aan looyarka waxaan difaacaynay waxa dhacda qodobo aan khuseen in lagu qaado inta badan oo waxa weeye imka saxaafadda kale aad bay u heersareysaa waxaad arkaysaa qof lagu soo eedeyn leeyahay waxaasaad jaraadka ku qortay bilmetel qodobo toos arintaa u taabanayana xeerarkan duuga kuma jiraan xeerarkii Somaliland dhigatay laftooda intii yareedeen qoranayna laguma dhaqmayadana taasina waa dhibaato kale oo jirta
marka la garwaaqsaday in caqabadi jirto tallaabooyinka ugu mudan ee lagu dhaqaaqo waxaa ka mid ah in loo howlgalo sidii xal loo heli lahaa iyadoo la adeegsanayo awoodda markaa wax lagu furdaamin karo waxaana ay su-aashu tahay marna ma la isweydiiyey in xal la gaadho. hay-adda dib u habeynta shuruucdu waxay ka mid tahay hay-adaha komishinada jira. waxay samaysataa sanadkii miisaaniyadda lagu talagalay maaha oo keliya gulnada komishineerska la siinayo laakiin xafiisku wuxuu leeyahay shaqooyinka waxaa ka mid ah xeerarka loo baahan yahay. tale sanadkii dhaweyd oo kale 4 xeer baa la yidhi waa in lasoo eegaa oo dib u habeyn lagu sameeya. 4 xeerna waa la dhameeyey. waxaa harsanuun qorshe howleedkiisii way dowladeena iyo markaad eegto miisaaniyadda iyo resource-ka wax lagu qabanayo run ahaantii uu yaryahay. haddana kama marna inaanu gelino effort commissioneersku ay ka kulmaan iyagoo shaqooyin fara badan haya run ahaantii mas-uuliyado. haddana kulamadooda weekliga ah waxyaalaha kaga hadlaan waxaa ka mid ah sanadka maxaa inoo qorshaysan. law reform commission marka la yidhahdo siduu u shaqeeyo waa la yaqaanaa. waa advisory body wuxuu kala taliyaa laamaha sharciga iyo hay-adaha sharcigu inay xeerarkii gaboobay waa baraarujin waanu baraarujinaa waxaanu idhahnaa xeerkaasi waa outdated. iminka penal code-ku waa dee xeer gaboobay. waxaa loo baahan telecommunication law waayo qodobada matala hawadan la kala xadayo cyber law baa loo baahan yahay. waanu gudbinaa waxaanu idhahnaa no more in judgesku ama garsoorayaashu ay kusii dabaqaan dadka theft act ayay u adeegsan jireen penal code-ka. laakiin telecommunicationku markuu yimid waxbay fahmeen. waxaa ka mid ah kuwa casriga la socda iyo tiknolojiyadda oo u baahan in la sameeyo. kuwa laftoodu consumer protection lawgii hadda gacantaan ku haynaa. 4 xeer imika maxkamaduhu ku shaqeeyaan xeerka nidaamka xeerka habka madaniga xeerka habka ciqaabta xeerka madaniga iyo xeerka ciqaabta intuba waxa weeyaan xeerarkii laga dhaxlay dawladdii hore ee Soomaaliya. xeerarkaas wali waa lagu shaqeeyaa. in lagu shaqeeyana waxa baneeyay dastuurka oo tilmaamay inta xeerar la mid la helayo in xeerarkii hore lagu sii shaqeeyo. kalfadhigii ka horeeyay iyo kii ka sii horeeyayba wuu ku jiray xeerka ciqaabtu. waxaan ilaa imka gacanta ku hayaa xeerka guddiga shuruucda ee golaha. waxaan filayaa in waqtiyada dhow runtii maadaama uu xeer ballaaran yahay waa xeerka kaliya imika ajandayaasha golaha ku soo noqnoqda ee ku jira. waxaan isleeyahay kalfadhiga dambe marka ku xiga isaguna insha Allah taala wax ka bedel ayuu mudan yahay oo laga sameeyaa. bulshaduna way dareentay dawladda iyo xukuumadduna runtii iyo baarlamaankuba way dareemeen in xeerka isagana wax laga qabto. gudiyadaas iyo qaybo kale oo ka mid ah garyaqaanada ayaa waxay idinku eedaynayaan ka gol ahaan in aydan marar badan meel marin dib u eegiso ay ku sameeyeen ama ay wax kaga bedeleen xeerarka gaboobay ee maxkamaduhu ay ku shaqeeyeen. marka arrinka noocaas oo kale ah maxaa idinku ka leedahay? wallahi intaan anigu marka golaha joogay maan arkin. intii hore 2 sano ka hor waxaan ka mid ahaa xubnaha guddiga shuruucda ee guddigaasina xiriirka la leeyihiin iyo lawyerska kaleba dee meelaha ay ka soo galaan golaha ay tahay maadaama iyagu sharciyada iyo cadaaladda ay qaabilsan yihiin meelaha ay ka soo galaan baan runtii ka mid ahay. intii ay guddigaasi jirtay ama lawyerskuba weli maan arkin xiriir ay guddiga la soo sameeyeen oo ay leeyihiin waliba ku darso xoghayan ka aha guddiga. aniga xoghaynta ka ahaa oo documentiga waxa la dhiibayo kana gacanta ku hayn jiray inta badan gudoomiye Cabdiraxmaan buu ahaa. wali ma iman inaan anagu yeerano oo mar hadba xeerkii noo yaala aan anagu ku soo casunno mooyaane wali xeer ay gacanta ku hayaan ama aragti ku saabsan xeer gaar ah oo xeerarka maxkamaduhu ku shaqeeyaan ah oo xeerarka ciqaabta ama madanigaba ah ama xeerarkii kale ee loo baahan yahayba intii aan anagu guddiga ka mid ah horta maan arkin. haddaba daawade maadaama aad ka soo bogateen xogo kala duwan oo ku saabsan xeerarka ciqaabta guud iyo habkiisa iyo xeerka madaniga iyo habkiisa muxuu noqonayaa xalka ugu dambeeya? waxa ka mid ah qaybaha dib u habeynta cadaaladda in dadkii la habeeyo oo dad qualified oo aqoonteedii la soo saaro dad jaamacadii ba ku howlan oo qayb baanu ka nahay. qaybtii shuruucda in dib loo eego oo shuruucda laga advice gareey iyaduna dee qayb baanu ka naho xataa xeerar fara badan la draft gareeyay sida xeerka la dagaalanka argagixisada xeerka booliiska xeerka xabsiyada xeerka oo baarlamaanka wada hor yaala. anaga mas'uuliyaddeeda ma aha. anaga mas'uuliyaddeeda waxa weeye inaan recommendation bixino laakiin cidda ay u taaleen xeerka ansixiso aadna run ahaantii baarlamaankan ugu baaqaya
xeerarka aanu soo samayno inuu ka qayb qaadano ee dawladeena aanu ku dhisayno haday noqoto kii awoodda siinay booliiska kii xabsiyada kii la dagaalanka argagixisada kii dib u habeynta shuruucda kii hay'adaha madax bannaan public tender board xeerar fara badan baa jira kii civil service looga xeerarkaas oo dhan waa in ay hirgalaan oo baarlamaanku ansixiyo runtii waxaan isleeyahay golahu wuxuu u samaysan yahay ama awooddiisa labaad waxay tahay inuu u soo saaro bulshada Somaliland xeerarka ay u baahan yihiin waa awooddiisa labaad ee ay tahay inuu runtii soo saaro waa waajib saaran golaha inuu ka bedelo xeerarka duuga ah ee waqti hore ahaa ee runtii aan maanta la jaan qaadi karin ama aan la shaqayn karin bulshadeennan iyo aqoontan imika korodhay midnaba aan la shaqayn karin waa awoodooda runtii sidaa daraaddeed baa waxaa laga maarmaan ah in aqoon-yahanka sharciga iyo baarlamaanku ay runtii waliba gudiyada baarlamaanka guurtida iyo wakiiladu ay isku xidhmaan oo wixii soo liisgareeyaan oo wixii ay u arkaan inaanay maanta suurtagal ahayn inay shaqeeyaan ay golaha u soo gudbiyaan golahu 12 xubnood kaliya u baahan yahay inuu mooshin ku dhigo in xeerka loo baahan yahay dabadna saa lagu dhameeyo inta xalka ugu dhowi ee runtii lagu sameyn karo waa ka waxa kale oo iman karta in gudiga lafteedu dibeegistu ay aqoon isweydaarsiyo ka samayso oo dabeetana ay halka ka soo baxdo in xukuumadda xageeda ay iyaduna ay ka soo gasho marka aqoon isweydaarsiga la sameeyo marka xukuumadda la isugu yeedho iyo hay'adaheeda kala duwan marka aqoon-yahanka sharciga la isugu yeedho ay xagga xukuumadda ka soo gasho baarlamaanka marka baarlamaanku sida uu dastuurku tilmaamayo uu ku khasban yahay inuu meel mariyo arrinkaas marka aynu u nimaadno gunaanadka warbixinteennan waxaan idinku dhaafayaa talooyinkan idinku soo socda guddiga cadaaladda guddiga dib-u-eegista shuruucda baarlamaanku ama hay isu yimaadaan oo ha ka wada tashadaan sidii xeerkan dib loogu eegi lahaa dhaliilihiisa iyo waxaa jira ama ha sameeyeen tandiim shareecada oo inta qodobayaal shareecada sida wadamada qaar ee Suudaan iyo wadamada noocaas ay samaysteen ama xeerkan ka guuraan ama xeerkan isaga laftiisa ha ku dabaqaan waqti oo hamidayaan ha isu tagaan oo ha hagaajiyaan cidda mas'uuliyadda saaran oo baarlamaanku ugu horeeyo oo ku xigta guddiga dib-u-eegista shuruucda oo ay ku xigta guddiga cadaaladda oo ay iyaguna sii raacsan yihiin sharci yaqaanada dalka oo wax ka qori kara cilmi baaris ka samayn kara tala soo jeedin ka samayn kara dadka aqoonta u leh inay soo jeediyaan oo ay golaha u soo jeediyaan oo ay keenaan oo dabeedna halkaas ay bulshadii faa'iidada halkaas ay uga timaado oo xeerarkaas muddada dheer soo jiray aan haddana waliba sii qeexo wali jaalasiyaad barra ku qoran xeerarka qaarkood maanta suurtagal maaha inuu maanta xeerarkiisiyaad barre sii haynaa suurtagal maaha marka waa in si dhaqso ah oo degdeg ah wax looga bedelo baarlamaankaagu markuu xeerkii obstacle ku sameeyo ama golahaagii wasiiradu oo ahaa mandate cidii u lahayd law making process oo iyagu ay tahay inay xeerkii generate gareen anagoo recommendation haydii markaan u gudbino golaha wasiirada waan u gudbinaa oo 40 xeer oo kale wasaaradda cadaaladda uu khuseeya gudoomiyaha maxkamadda sare uu khuseeya xeelanta guud uu khuseeya baarlamaanka uu khuseeya golaha wasiirada khuseeya shantaan noqol oo folder weyn ku jira ayaan u gudbinaa anagu dabeet waxaan sidoo hay'adihii ay khuseysayna bal inputkooda ha ku soo daraan waxaan waa talo laga soo ururiyay bay ahayd dadkii xeerarkan lagu dabaqay waa muwaadinka waa dadka legal professionals ama ku hawlgala mihnada sharci waa dadkii caafimaadka oo caafimaadkii maanta sophisticated buu noqday crimeski bariga hore jiray crimes ka waaweyn baa leh kulka crime against the health public health kiyo dhakhaatiir baan la tashan waxbaan iyaga ka soo qaadan technology waxbaan ka soo qaadan bulshadii genderki waxbay nagu soo kordhiyeen kulka xeerarka input ku galay waxaan soo jeedinaa in la hirgeliyo maxkamaddu waxay ku dhaqmaysaa marka baarlamaanku ansixiyay